waxaad ogaataa waa inaad taqaanaa hadafka aad nolosha ka leedahay. waa inaad garanaysaa waxa aad doonayso inaad xaqiijiso. taasina waxa ay ku sahlaysaa inaad si fudud aad ku gaartid guushaada. waa inaad lahaataa dulqaad iyo adkaysi. caqabad kasta oo ka hor timaado waa inaad jiiri kartaa, waayo ma jiro qof guul gaaray oo sahal ku helay. diiradda saar shayga aad doonayso inaad xaqiijiso. mar walba waa inaad tallaabo u qaadaa xaggeeda. taasina had iyo jeer waxa ay ku sahlaysaa inaad guushaada gaartid. marka ay dadka hadlayaan dhageyso oo si buuxda u faham waxa ay ka hadlayaan. intaada hadlinna waa inaad fakartaa oo aad xulataa erayadaada si quman oo xirfad leh si aad ugu fogaato qaladaadka. ha u joojin dadka hadallada xun kaa sheegaya. runtii kuwa ayaa ku liidaya waxa ayna doonayaan oo ay ka soo horjeedaan horumarkaaga. waxaana la doonayaa in caqabadaas aad jiirto. waa inaad dejisaa yoolalka aad doonayso inaad xaqiijiso. diyaarinta qorshe ku habboon ayaa lagama maarmaan u ah gaaritaanka guul xirfadeed. fariiso meel degan oo habboon, si taxaddar leh ugu fikir dhammaan yoolalka aad rabto inaad gaarto, kuna qor warqad. waxaad ogaataa waa inaad samaysataa saaxiibo wanaagsan. runtii saaxiibada wanaagsan waxa ay ku sahli karaan inaad gaartid guushaada. caawi dadka kale meel kasta oo ay joogaan. dadka la kulma dhibaatooyinka qaarkood noloshooda. markaa hubi inaad caawiso oo aad siisid taageero. la hadal, gacan sii, ama sii xoogaa talo ah oo ka caawin karta xalinta mushkiladooda. ogow, sirta guusha waa inaad ku adkaysataa hadafkaaga. farxadaada iyo guushaadana adiga ayay kugu jirtaa. maalin wanaagsan.